maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale u fariisatay dacwad ciqaabeed loo haystay eedeysanayaal lagu soo oogay inay soo abaabuleen qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay isgoyska Soobe magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhinteen in ku dhow 1,000 qofood. maxkamadaynta eedeysanayaashan oo ah markii labaad ee la dhageystay ayaa waxaa maanta xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxa uu hor keenay maxkamadda cadeymo dheeriya marqaatiyaal iyadoo sidoo kale maxkamadda la hor keenay baarihii soo baaray kiiskan waxaana markaa kadib ay qareenadii difaacaya eedeysanayaasha su'aalo weydiiyeen marqaatiyaasha iyo sidoo kale baaraha waxaana maanta ahayd dood mid adag iyadoo ay u dhaxaysay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacaya eedeysanayaasha. intii ay socotay maxkamaddu waxay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya soo bandhigeen muuqaal kaamirada CCTV-ga ay duubtay kaas oo ay qabteen kaamirooyin ku yaalay agaarka isgoyska Soobe ka hor inta uusan qaraxu dhicin. waxaa sidoo kale maxkamadda lagu soo bandhigay damaanada la damiintay gaariga qarxay 14 Oktoobar sanadkii hore kaas oo uu damiintay nin lagu magacaabo Cabdiweli oo isna kamid ahaa eedeysanayaasha maxkamadda la hor keenay iyo Mukhtaar oo isna damiinka ahaa Cabdiweli. waxaa sidoo kale maxkamadda lagu soo bandhigay muuqaal sawir ah oo muujinaya Cabdiweli milkiilaha gaariga oo abtigiis ah oo maqana ah iyo sidoo kale darawalka gaariga oo hortaagan gaarigan qarxay laguna sawiray. dood dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii soo bandhigay dalabkooda sida ay wax u doonayaan. xafiisku waxaan codsanaya in la saaro ciqaab u dhiganta dambiga ay ka galeen dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed. mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Cabdiweli Axmed Diiriye iyo Mukhtaar Maxamuud Xasan Rooble labaduba waxay mas'uul ka ahaayeen in gaarigaas laama amniga ku kalsoonaadaan si kalsooniga uu ku soo galo magaalada Muqdisho intaas oo dadana ku laayo. qareenada difaacaya eedeysanayaasha ayaa iyaguna dhinacooda dalabka xeer ilaalinta ka dhigay mid aan suuragal ahayn iyagoona dhinacooda soo jeediyay codsiyo. maxkamadda sharafta waxaan weydiisanayaa ayadoo la fiirinayo aayadda quraanka ayadoo la fiirinayo qaanuunka asan shaqo ku lahayn ayadoo la fiirinayo wax walba ayadoo cadaalad la fiirinayo maantana aan filayo maxkamadda ugu cadaalad badan dalka inay mid doontaan aan filayo cabdi warsame in laga xurrimadiisa loo celiyo maadaama asan dambiga lugeesa fal ku lahayn shaqo ku lahayn maxkamadda waa maadsanta inaan geesinimo u yeelano waa xasuuqa dhacay ma taqana dadka aan mas'uulka ah inaan sii day karno waa ummadda aan sii wadanka sharci dastuur iyo shariica ka jirto min adbi lahayn ma u saarinayna ma taqana 760 koox halka ku dhimatay. marka waxaan codsanayaa ganaax haddii maxkamadda la noqdo hadday kale muddaday xirnaayeen hadda 14 Oktoobar waxay xiran yihiin ilaa 3 bilood ay xiran yihiin hadda waxba kama qabo maxkamadda inay 3 kale ugu darto oo lagu canaanto oo 6 bilood liira marka damiin laga hadlaa Mukhtaar iska dhaaf ninkaas ma taqaanayna baabuur hataa looma sheegin Mukhtaar arrintiisa ma bakaad karo. marka naxariista maxkamadda sharafta ka ordayna ka filayna in cadaalad qodobka sharciga la fiiriyo ma ka soo bixin waajibkooda. xeeraliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa isna maxkamadda ka hor sheegay maanta in cadeymaha ay keeneen ay ku filan yihiin eedeysanayaasha maxkamadda la hor keenay in loo ciqaabo dambiga ay galeen. halkan TM maxaa kuwa kale uu yaqaan shakhsiyan uu baari waay gacansiinu meesha uu joogo shaqo qabanay saadabteed waan ku qanacsanahay eedan soo gudbinay maxkamaddu waxaan codsanahay in sharciga ay ku xukunto. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambeyntii maxkamadda soo xiray sheegana in la soo gabagabeeyay kiiska dhageysiga dacwadda qaraxii Soobe lagana sugayo maxkamaddu inay go'aan ka gaarto. dacwada la xiriirtay shanta eedeysane oo maalmahan socotay halkaas ayay ku dhameystiran tahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto hadduu Ilaahay yiraahdo.
maxkamadaynta eedeysanayaasha loo haysto qaraxii 14 Oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo ay ku halaagsameen dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ka mid ahaa dacwadii ugu cuslaa ee soo mara maxkamadda ciidamada. Maxkamadda maanta ayaa waxa soo buux dhaafiyay dadweyne fara badan kuwaas oo daneynayay dhageysiga maxkamadaynta dacwadda qaraxii Soobe, waxaana kiiskani si weyn indhaha ugu haya dadka Soomaaliyeed oo weli dareemaya urkutaalada ay ka qaadeen weerarkii bahalnimada ee kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen isgoyska Soobe.